guushiina kadib maxay tahay arrimaha ugu horeeya ee aad rabtaan inaad bulshada u qabataan وليلى العلمي sanadkan waa sanadkii doorashada insha Allah 13 September ay doorashadu dhacaysaa anigu kolley fariinta ugu muhiimsan dadka u gudbinayo mid ugu horeysa waxay dadku inay codeeyaan qof walbana isaga xor u ah xisbiga uu codeynayo laakiin in laga fiirsado xisbiyada loo codeynayo iyo sida ay dantaadu ugu jirto inaad ka fiirsatid waa talada ugu weyn aan u gudbinayo dadka Soomaaliyeed anigu 8 sano horaan soo fadhiyay baarlamaanka doorashadana waa sharaxanahay insha Allah anigu inta badan waxaan ka shaqeeyaa arrimaha ku saabsan suuqa shaqada isbedelada ugu badan ee aan doorashadan ku galay waxa weeye in shaqo loo abuuro dadka dhalinyarada ah run ahaantii dhalinyarada maanta kuwii wax bartay iyo kuwa aan wax baranba suuqa shaqada uu ku adag yahay marka xisbigayga intaan hadda 4 sano ugu dambeysay waxaan xisbigayga kala shaqeynayay oo aan soo saarnay barnaamijyo ku saabsan sida loo fududeyn lahaa waxbarashada xirfadaha ah run ahaantiina waxbarashada xirfadaha waa shaqooyinka ugu badan ee maanta loo baahan yahay qofkii jaamacad dhigan kara inuu jaamacad dhigto laakiin qofkii aan jaamacad doonayn inuu xirfad barto xirfadaasna uu shaqo ku helo run ahaantii waa dhalinyaradana kaliya maaha suuqa shaqada dad badan bay caqabado ka haystaan sida dadka waaweyn ee aan luqadda garanaynin iyaga laftigooda in loo sahlo barnaamijyo ay xirfado ku baranayaan si ay suuqa shaqada ay u soo galaan marka hore waa maaqsantahay walaalkayga Saabir magacayga waa Ilyas Xasan musharax oo ah xisbiga bidix ee Vänsterpartiet magaalada Stockholmsland waxyaalaha aan rabo inaan xooga saaro haddii oo shacabka igu aaminaan inaan baarlamaanka soo galo waxaa ka mid ah dhinaca guryaha waxaan ognahay shacabka badankooda dadka ku nool guryaha kiraystayaasha loogu tawagale caqabado fara badan hayso waxaa laga yaabaa shirkadda guriga iska leh inay yihiin shirkad oo dhaqaaleynaynin kiraystayaasha guriga aysan renovating ay ku suubinaynin sidoo kale waxaan ognahay guryaha kirada inay qaali noqotay dad fara badan dhaqaalaha way ku adkaatay sida walaashay Leila ay tiri waayahan dambe dalkan dhaqaalihiisa xoogaa way adkaatay dadka shaqaalaha dhaqaalahoodina way yaraatay waxaa ku nool dalkan ku dhawaad 730,000 oo qofood oo faqri ah ma aan waxa aan sheegay waa wax Statistics Central Bureau ee soo saareen dadkaasna badanaa waxay degan yihiin guryaha kirada kiraystayaasha loogu tawgalay marka aniga waxaan rabnaa xisbigayga inaan dawladda awoodda siino si ay u maalgeliyaan ee dhisaan ku dhawaad 20,000 oo guryo sanad walba oo kiraystayaasha loogu tawgalay oo kiradooda hoos yar tahay sidoo kale waxaan rabnaa inaan shirkadahan oo dhiigamiiratada ah inaan iska celino oo sharci soo dejino oo degmooyinka awood siinayso inay guriga la wareegaan ee ka iibsadaan kuwaan dhiigamiiratada ah si ay kiraystayaasha xasiloonida u helaan oo shirkad fiican la wareegto gurigaas sidoo kale waxaan rabnaa in kirada sanad walba wax lagu daro inaan joojino intii sharci cusub soo bandhigeen baarlamaanka oo xoojinayso kiraystayaasha awoodooda marka dhinaca guryaha kirada waxyaalo fara badan aan rabnaa inaan suubino anina hamigay waxa waa inaa taasi xooga saaro maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee maanta haysata Sweden sidee ayaad u qorsheenaysaan inaad wax ugu qabataan والله runta ahaantii walaashayda 8 sano baarlamaankan ku jirta si fiican waa la socotaa caqabadaha wadankan ka jiro waxaa kamid ah waxaan ognahay muslim naabka wadankan inay badatay sidoo kale in ajaanibka guud ahaanba la necban yahay dawladan midigna uma roon dadka soo galootiga ama ajaanibka ama dadka muslimiinta iyo dadka shaqaysta oo dhan oo dalkan ku nool dawladan waxay xooga saareen inay canshuurta dadka tujaarka ah ee u dhimaan mana aysan maalgelinin si ay bulshada ugu faa'iideystaan dhinaca caafimaadka iyo iskoolada iyo shaqo abuurida marka waxyaalo fara badan jiro oo dawladan rabaan inay suubiyaan laakiin tana is leeyahay oo ugu
xun dhinaca cunsurnimada haddii la yiraahdo waxaa ka mid ah waxay rabaan inay xijaabka mamnuucaan sidoo kale waxaan ognahay haddeer inay rabaan inay dowlad isla dhistaan xisbigan cunsuriyiinta Sverige Demokraterna waa xisbigii maalin walbo ajaanibka caayo xisbigii maalin walbo muslimiinta caayo waayahan dambena waxaa ognahay hate crime hoodbrot inay badatay oo siiba dumarka iyo dadka ajaanibka ah mar walbo caqabo fara badan ay soo maraan marka doorashada muhiim waayay dhinaca dhaqaalaha la muhiim u ahan inay isbedel ka dhacdo isbedelna waxa u baahan dhinaca kale oo ah in oo dal isku xiran inay noqoto Sweden oo dadka runtii Ilyas wuu sharaxay inta badan caqabadaha ay dawladdan hadda jirta dawladda hadda jirta waa dawlad cunsuri ah ma ahan dawlad caadi ah oo la dhihi karo waa dawlad dadka dhexdhexaad u ah waa dawlad ajendadeedu ay tahay in dadka ajnabiga waddankan jooga ciriiri in la gasho dadka ajnabiga qaar la celiyo هذا الشرعية حتى وي بدلين ويعني إن شرعية برمننتيجا ولا تشوشي ولا لو تشوشي لكن إن حتى ضدك الشرعية برمننتيجا هايستا إن دي بلوغ لنا نقض الشرعية برمننتيجا وأردت أن نقارن فربضن بيكون بحنا يعني إن وقفكوا وضن كان سكجن قضاء إليهين لعجنا قد البضع سياد وضن كينو ونقطان إن وحوينا امتحان إن لوجليو إن باسبور كوين باكمد مسكو صوتوب وحنا وحلو لجيدا حتى هذا الضد باسعوتا إن باسبور كوين ليس كلا نقون كرا ضد بدن بهذا وحي أمسين أنا قريب ما هيست باسبور وين هيستا لكن وحوين باسبور كوين شرعي باكوشية هذه شرعي كوشية أي ضد تاجين هينو وحسبية ما أنت إلين شرعي كان سنرمنا إن بدلنو قف كستي سامين السام إن هذا تصال أهان وحويا واحد تحت نقالها إلياس أنت كهذي إن بيدروكس توك وحلا إن يعني ضدك فاميليا ده إن صدح أرور كبضن هيستا إن اللي يريد نقالها والذي كدي يا إن وأنا وفهم إنسان وجدة لو دلني هاي إن رهانتي ضدك المها بدن لا وين نقالنا إن لو جدين ضدك لو تشود إن يهين ضدك أجانب تا وأي تهاي إنه لوش لجو عريريو ما لا بدن أنا لقى صوير ريا إلياس حشاب وشتاقي حشاب كان يتو أرين صوص عطوا مددير إكهليين هذا كور دقموين سكون وكويا عليه دمعين وكم نوعين حجابك لكن محكمة باللوجو جوليستي موشنان كقرني مقالان كقرني وكدونا أريمهاني تبارلمان كجوديهيسا أنا جيت دفاعك إنه ودفاعنا رونهانتي لكن ضدكو دفاع وين استفاعي كران معهن قف برلمان كدونا دفاع وين استفاعي كران وحوي ما أنت دور شد إنه قفل بقعديو حسبي سجى واحتري كرا ومد وكسوت شيء أنا واحتري كرا يعني حسبي حقوق ذا الإنسان كإلى لنكرا حسبي يعني دقالها وضنك أديك كبعين كرسي ده أدوك نرشكو جوه أكتو إتشارده هذا ضدك وحاول لجو قاليه معايشة ولجو قاليه شقة السوق ما تشرتو لبعتوين فرن بدن باتشرا لكن شقة السوق إيو معايشة قال نقطة وحى كم يهمسن أولا بإن أديك وضن كان أمان إن نبتكو تشوكتير لكن حدي حقوق هذا ما نبى مثل سيبو أمان كانوا ويرانيا نبدأ أكو تشوكت وضن كانوا ويرانيا مركو ولا ليالو واحد صوب حقوريها كصوب بحها مسؤولية إسكسارة إناد عضيسان. waxaad ku doorateen xisbiga aad ka tirsantihiin أنا waxaan u arkaa xisbiyada aan ku jirno horta inay yihiin laba xisbi oo isu siyaasad dhow oo isku garab baan ka nahay siyaasadda Venstre Partiet iyo Miljöpartiet laba xisbi oo kala fog ma ahan aragti ahaan meelo badan markii la fiiriyo haddana waxa aaminsan anu naftaydan ka hadli karaa laakiin ani xisbiga Miljöpartiet waxaan u doortay inuu yahay xisbi u wanaagsan dadka macnaha danyarta ah u wanaagsan dadka ajaanibta mar walba u taagan ilaalinta xuquuqda insaanka sababtaasaan anigu u doortay xisbi ahaan Ilyas isaga sharaxi doona xisbiga Venstre Partiet wuxuu ku doortay anigu waa dhihi karaa anoo xisbiga Venstre Partiet ka tirsanayn inuu yahay xisbigaas xisbi wanaagsan markii loo fiiriyo
xisbiyada dhanka midigta sida moderatka iyo kristdemokraterka iyo sverige demokraterka marka waxa weeyaan dadku xisbiyo kala duwan way dooran karaan laakiin waxa muhiim ah inay iska baaraan xisbiyada ay ogaadaan xisbiyadu siday baarlamaanka ugu kala codeeyaan hadda baasaboorka imtixaanka loo geliyo xisbiga ugu weyn dalka uu u codeeyay macnaha xisbiga social democratska meelo badan buu wuxuu kala codeeyaa dowladdan hadda cunsuriga ah dadku inay aysan is oranin waabay wacnaan jireen oo waabay fiicnaan jireen de waa hadday fiicnaan waabay fiicnaan laakiin maanta inay waxay yihiin maanta baara ani xisbigayga arrimaha xuquuqda dadka soo galeetiga aad buu ugu doodaa weliba arrimaha migrationka iyo sharciyada waa xisbi aad ugu dagaalama taariikhdiisana de qof kastaa baari kara de kole ani xisbigayga waxaan ku doortay mabaadiida uu leeyahay inuu yahay xisbi dadka u wanaagsan ani kama tirsanaan lahayn kumana jiri lahayn xisbi ummadda dhibaataynaya ummaddu ciday doonto ha ahaato kaliya ma inaan ka hadlayo Soomaali ama ajnabi ani xisbigayga waxaan u doortay inuu yahay xisbi doonaya sinaan iyo cadaalad ilaalinaya mar walba xuquuqda insaanka qofku marka wuxuu ka tirsanaanayo inuu og yahay waxaan inay yihiin wax fiican marka aniga saasaan ku doortay kaliya ma ahan ajnabi marka xisbigayga sidii loo soo asaasay ilaa maanta waxaasaa ka shaqaynaa wax cusubna ma ahan taasaana sababtay in aanay ku biiro xisbigan xisbiyada badan baarlamaankan ka jiro 8 xisbiya baarlamaankan ka jiro run ahaantii xisbigayga iyo xisbiga Millia Partiet sidaan aaminsanahay maanta waa labada xisbi isku dhow haddii la dhaho fikradaha iyo siyaasadda iyo xuquuqul insaanka xisbiyada kale xoogaa dhinaca midiga waayahan dambe sii aadaan gaar ahaan haddii la fiiriyo xisbigan social democratna waxyaalo fara badan oo ku saabsan soo galootiga migrationka waxay taageersan yihiin dhinaca midig iyo sverige democratna fikradahooda wax ay hadalka ka dhahayaan ma aha wax ay maalin walbo ay la codeeyaan baarlamaanka dhinacan kulay walaashay leela si fiican la fadhiisaa marka oo daynayo social democratna ku dhawaad boqolkiiba 95 sverige democratna iyo dhinaca midig fikradahooda ku saabsan migrationka way taageersan yihiin marka waxaan leeyahay dadka bulshooyinka gaar ahaan Soomaalida iyo dadka kala baxata war xoogaa akhriya fiiriya social democratna xisbigooda waxay aaminsan yihiin waxay rabaan inay suubiyaan run ahaantii aniga waan rabnaa inaan isku dowlad dhisano xisbigayga Vänsterpartiet Partiet Millia Partiet waxaa xataa laga yaabaa walaashay inay wasiirad noqoto iyo social democratna hal dowlad aan rabnaa inaan isla wada dhisano laakiin muhiimadda waxa waaye dadka inay codeeyaan